وعشر كينا تضوات انتجرال قيبتين تضوات ان وحاسيودينا ان شاء الله قيبتين ان substitution labadan cashira ka shaqeynayna hadal badan ma buuxsho muhiimadda waxa waa inaad fahantiin sida loogu shaqeynayo intaana cashirada u gudbin wax muhiim ah horesaan iigu sheegay daa xasuusata e to the x waa sidaas integral 1 over x dx na waa dx antkilo waxaa haysataa ln x lagu daray cayn waa constant okay bal cashirkeena koowaad aan ka shaqeyno waxaa haysanaa cashirkaas sidaan integral hal loo qeybiyay x ln x dx maxaa sameynaa marka waa substitution marka inaan ku bedelno hadda sidaan aad u dhib badan tahay in loogu shaqeeyo laakiin waa inaad xalkeennaa sidaa u fududeen okay waxaan ognahay hal loo qeybi x waa ln x lagu daray constancy wax saan camala inaan ka dhigno wax fudud okay haddii aan dhaho u'da waxay la mid tahay ln x waa ogahay haddii u'da anigoo xigsanayo x derivative ku samee waa hal loo qeybe x sooma okay marka inaan fududeyno waaye waxaan dhahnaa cashirkeena waxaa waaye integral hal loo qeybiyey x ln x dx waxay la mid tahay inta dx wuxuu la mid yahay dx waxay isla mid yihiin hadda inta ku dhufto xna xaggan ku dhufto x du oo la mid ah dx sooma okay tan waxay la mid tahay integral hal loo qeybiyey x lagu dhuftay u'da sababtay tahay ln x ayaa u bedel dx kana waa ogaha waxay tahay waa x lagu dhuftay du kaas waa jackpot waa labadan isku bixin oo ujeedaa waxaa meesha noogu soo hiray waxaa meesha ku haysanaa markaas hal loo qeybiyey u oo integral ah oo du ah marka integral haddaa sameynaysid inay macnaha xuruufta ay isku mid noqdaan inta x ku qornaa leeda hadda xaggana u integration ma samey karta hadda waa xordhan isku wada mid waxaa ognahay hal loo qeybi x waa ln x lagu dara cayn marka meeshii x meeshan ka tahay waa lnu ma fahanta lagu daray cayn constant u'da waxay la mid tahay ln x marka waa ln x lagu daray cayn waa jawaab aad u layaab badan oo macnaha jawaabta aaday u dhib badan tahay araggeeda laakiin shaqayskeeda ma dhib badan ln oo haddana ln kusii dhex jirto x ah lagu daray cayn yes examplekeen labaad waxaa ka dhiganaynaa kan waxaa haysanaa integral cosine x square laga jara hal lagu dhufto labo x dx okay sidaa ugu shaqey karnaa cashir noocaana okay haddaa og tahay waxaa haddaa dhahda integral cosine x dx waxaa hele sin x lagu daray constancy cayn okay bal aan ka shaqeyno mar walbo xisaabta okay saan way dhib badan tahay haddaa isla markii fiirisid laakiin mar walbo waa inaa waxa dhibka badan aan ka dhignaa wax aad u fudud oo basiid
maxaan samayn karnaa marka haddii aan dhaho u waxay la mid tahay x square laga jaray hal okay markaas waa ogahay haddaad derivative ku sameeyo waxaan helaa 2x soma dx dhankan kala geena du loo qaybiyey 2x oo lamida dx oo waa isfahanaa umaleyna okay marka haddaad sii fiirisid example-keena saasuu ahaa cosine meesha ka qori lahaa x oo laba la kordhiga laga jira hal waxaa ka qoraa u aa ka qora maadaama aan fududeeyo waxaan ku dhufanaa 2x waxaa kusii dhufanaa dx waa du loo qaybiyey 2x marka saanay noqonee 2x kan iyo kama isku baxeen maxaa ii soo heray integral cosine u du okay marka waxaa ogahay integral hadda ku samaysa cosine waxaa helay sin x sooma cosine x haddaad integral ku samaysid sin x ugu daray cayn constant marka jawaabta waxay isku bedelee sin u lagu daray cayn sidaa bay jawaabta noqonee hadaa hore ugu sii socono jawaabta oo saxa mahasaan u'da waxaan dhahnay asalbo x oo laba la kordhigay x square laga jira hal cayn jawaabta saasay noqotay marka qaybtani waa qaybteena substitution waa wax aad ku bedelaysid wax kale waxaa haysanay problem adag waxaan ku bedelnay wax fudud mafahant cosine u aa ka dhigay du ayadoo ahayd wax saan u dhib badan fahansanta marka xisaabtaasaasa wax aad u adaga waxaa ka dhigaya wax aad u fudud okay iyo example-kan marka ku cesho fiirso insha allah waa fahmi doontaa wabillahi tawfiiq